dhiigkarka runtii waxa ugu muhiimsan markii dhiigkar la soo qaado laga sheekeeya oo aad iyo aad ahamiyadda loo saaraa waa laba qaybood. qayb waa lifestyle oo qofka bini'aadanka ah ee dhiigkar kale inuu noloshiisa wax ka bedelo. qaybna waa daweyn iyo qofka in dawo la siiyo. qaybta lifestyle-ka ayaa health education-ka number 1 ka gashay oo iyada ugu muhiimsan. marka qofku wuxuu u baahan yahay number 1 inuu noloshiisa wax ka bedelo, cuntadiisa wax ka bedelo, hadduu sigaar cabi jiray uu sigaarka joojiyo, haddii uu koofeega iyo shaaha iyo waxyaalaha aad u cabo uu yareeyo, milixda cuntada inuu ka yareeyo, waxyaalahaas wax badan oo kamid ah ayay dhiman dhiigkarka. dhiigkarku mar walba oo qofku da'diisa ay sii korodho isaguna wuu sii kordhaa. marka dadkeena waaweyn waxaa lagula talinayaa iyaguna inay socodka ay badiyaan, inay yareeyaan waxyaalaha dufanka badan ee cholesterolka keenaya. inaga oran maayo sida dalalkan imka aad dadka lagula taliyo in la yiraahdo booshano u qaybino cuntadaada oo lifestyle cuntada ay kamid tahay in la bedelo, laakiin dalkeena waxaan leenahay war hilibka iyo subaga iyo dufanka waa qayb kamid ah qaybabka wadna xanuunka iyo cudurrada keena in la yareeyo, in socodka la badiyo, in exercise-ka la badiyo, in nolosha wax laga bedelo. qaybtaasi waa qaybta koowaad ee ka hortagga ama daweynta dhiigkarka. qaybta labaad muxuu ahaa mar labaad dib ugu soo celiyo waa lifestyle-ka oo dib loo bedelo oo nolosha aad u nooshahay sidaad u nooshahay bedesho, cuntada oo aad wax ka bedesho oo cunto caafimaad la isticmaasho oo aad yareyso hilibka iyo dufanka iyo waxyaalaha keeni kara inuu subag ku sameysmo jirkaaga, in aad exercise sameysid, in aad yareysid koofeega iyo maadooyinka koofiinka waxyaalaha ay ku badan yihiin, in aad inaad sameysid haddaad sigaarka cabtid sigaarka yareysid. intaasi waa inta muxuu ahaa ka hortagga. dawada markii la yiraahdo dawooyin badan oo kala duwan baa la isticmaalaa. dhakhaatiirta dhakhtar walba mustawa walba oo maraya mar hadduu dhakhtar yahay oo shahaado jaamacadeed sito uu ka adag yahay inuu daweeyo dhakhtarka inuu hypertension ka daweeyo haddii aanu complication badan aanu keenin. marka waxaan leeyahay dawada waxaa ku qoraya dhakhtarkaaga, normalina wuxuu ku qorayaa kiniin hal mar la qaadanayo 24 saacadood. kiniinkaasi markaa wuxuu insha Allah taala ka daweynayaa dhiigkarka. marka waxaan ka digayaa inuu qofku intuu xabad kiniina qaato uu yiraaho dawadii kiniinkiisa dhiigkar baan leeyahay oo dawadii qaata. ma aha sida dhiigkarku ka duwan yahay. dhiigkarku wuxuu u baahan yahay in regular check-up uu sameeyo, inuu mar walba is eego, inuu cabirka joogteeyo, in xabadii kiniinka ahaa halkiisii ma gaarsiiyaa okay marka loo daayo. waxaad u gudbaysaa marka stageska lagu daweynayo waa 3 stage. waa stage-ka koowaad oo xabada kiniinka ah oo intii la doonayay inuu gaarsiiyo okay halkeedii ku sugay. stage-ka labaad waxa weeye in xabadii kiniinka ay wax ka tiri waayeen oo 2 kiniin la isugu daro la yiraahdo kaana subax isticmaal kaana habeenkii isticmaal ama labadaba wada liq. taana haddii wax ka tiri waydo in 3 kiniin laga dhigo, in marka uu dhakhtarku combination dawooyinka isu tagooda uu sameeyo. marka wuxuu u baahan yahay qofkaasi mar walba inuu ku xidhnaado dhakhtarka, mar walba inuu dawada loo qoray uu ilaaliyo, mar walba inuu cabirka joogteeyo, inuu isagu laftirkiisa qaato mashiinkan lagu cabiro dhiigkarka. wuxuu keenaa khalado akhrintiisa oo waxa laga yaabaa 2 jeer isku xiga markaad cabirto, marka hore inuu cabirku soo saaro, marka dambe cabirku soo saaro. marka mar walba uu ku yar celiyo oo average-ka dhexe uu qaato. marka sida ayaa insha Allah taala iyadana lagu cabiraa. dawooyinkiisana waa caynka dawooyinka la siiyo dhiigkarka. ta koowaad ee stage 1-ka waxa la yiraahdaa waa dawooyin angiotensin converting enzyme baa la yiraahdaa oo waxa kamid ah enalapril iyo captopril iyo dawooyinkan la yaqaano ee dalkeena wada yaala. waxaa kale oo iyadana la siiyaa calcium channel blockers oo ay kamid yihiin amlodipine, ephedrine iyo dawooyinka iyaguna ay kamid yihiin. waxaa kale oo la siiyaa dawooyinka la yiraahdo diuretics oo iyaguna soo saaraya kaadida ay badinayaan si uu pressure dhiigga uu yaraado oo ay kamid tahay chlorhydrothioxide-ka ay kamid yihiin. marka dawooyinka caynkaas la siiyaa. dawooyin aad iyo aad u badan oo kala duwan ayuu dhakhtarku idin siinaya markaad u tagtaan. mid buu ka siinaya laakiin ayaa liiskaas jira, midna dhibaato ma laha. mid walba isaga dhakhtarku go'aaminaya. marka laakiin qofka waxaa muhiim ah oo aad iyo aad muhiim ah dawadiisa aad u ilaaliyo oo uu ku adkeeyo dawada dhakhtarkiisa in xiriir joogto ah u la saaro. waa qayb qof walba oo
caafimaad qof walba oo bini aadan oo nool uu u baahan yahay waa inaynu caafimaadka akhrintiisa iyo dhegeysigiisa badino waa inuu qofku ogaado muxuu uga baahan yahay caafimaadkiisa waa inuu ogaado wax badan oo ay noloshu keento ayuu kaga badbaadi karaa inuu isaga macluumaad helo qof walbana waxaan leeyahay ciladaha dalkeena ka jira caafimaadka ka jira aynu isu kaashano si aynu u gaadhno qofkan inaynu caafimaadkiisa ilaalino iyaynaan gaadhin marxalad maanta intuu qofku yimaado isagoo dhiikar qaba loo sheego dawada intuu xagga dambe ka tuuro maalinta ku xigta la keeno isaga oo la sido oo dhiig madaxa kaga farmay oo waxba laga qaban karin marka aynu bilowno inaynu la wareegno aynu marba meel geyno oo aan waxba laga qaban karin waxaan leeyahay dhiikarka iyo macaanka iyo cudurrada inagu soo kordhaya dhakhaatiirtana waxaan leeyahay in dadka u sheegitaankooda la badiyo baaritaanka wadna xanuunka iyo waxa dadka laga baaro biidni illaahi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala hawlaha inoo fududeeyo